السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكن أحمد نور شاه عبد الله waxaan ku sugnahay bartamaha magaalada Bucharest maanta waa 15kii Ramadaan oo ku beegan 8 bisha May 2020 Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha inaga aqbalo Ramadaanka iyo cibaadada iyo qiyaamka habeenkii وولالكين وأنا سلام يا دمانتين إلهي سبحانه وتعالى وحن ويدسنينا دم بداف يا إنه ماركت عذر كان صف مركعة كورونا بانديميك إنه إلهي نجاقه سبحانه وتعالى من الشرق إلى الغرب يعني قيل ضوايا دي وطن كان أنا نوتشوغو رومانيا عاصمة هذا بوكارست أيان شوغا قدال hoteelka magaalada ugu caansan oo Intercontinental la yiraahdo ayaan hadda hor fadhiyaa dhinaca kalena waan idinku qaban doonaa waxa iga soo horjeeda jaamacadda ugu weyn macnaheedu magaalada university marka ama university bay wadankan university bay ka dhahaan laakiin macnaheedu English waa university Bucharest University waaye marka alxamdulillah dhankan kale ciidamadii booliiska ayaa taagan iyo jandarmarigii booliis militaar waan idinku qaban doonaa insha Allah waayo bartankii magaaladan ku sugnahay wadankan lockdownkii waxa ka haray muddo 7 cisho ah waana 8 week ayaa lagu jiraa marka maanta 7 week ayaa dhamaatay week hadii lagu daro waa 8 taa macnaheedu waxa weeyaan wadankan 2 bilood ayuu maaragtay lockdown ku jira wadamada kale ee Yurub ayuuna la mid yahay runtii wadamo dhameystayna waa jiraan laakiin xayiraadii hal mar lama wada qaadayo mar walba waxa weeyaan qayb hadda shanqadhan aad maqnaysaan waan idinku qabanayaa waxa weeyaan magaalo 5 milyan ay ku nooshahay lama wada xadidi karo marka waxay fasaxeen labadii week ee u dambeysay construction-ka ama dhismayaasha in dhismaha qoliyaha wadooyinka shaqeeya ciidamada booliiska dhaqaatiirta iyagu waa khasab waayo wadankan wadamada la dagaalamaya bandamigu ku jira isbitaalada iyo dadka shaqeeya nursery-ga iyo dhaqaatiirta kala duwan iyagana way shaqo tagaan marka adiga 25% qiyaastii ayaa wadankan shaqo tagtay dadkii kale waa la xanibay marka anagu ragga waxaan nahay guryaha joogo oo aan bixi karin marka iskuulaadka macallimiinta muqaaxiyaha dadka shaqeynayay restaurantiyada meelaha baagaga oo lagu nasto wixii oo dhan waa xiran yihiin marka wadanka 95% waxaan dhihi karaa waa lockdown sida kale cudurka haddaan wax yar idin faahfaahiyo cudurka coronavirus iyo xaaladihii u dambeeyay Chinahu uu ka soo bilaabmay laakiin 4600 ayay sheegeen laakiin tirada ay qarinayaan baa aad u badan baa leeyahay wadamada Ruushka Chinaha iyo Ethiopia midna xogta rasmiga ah ma soo bandhiga caalamka kale ee dimuqraadiga ee maaragtay transparent-ga ma aha marka hadda wadankii aan ka imid Norway waa 219 qof Finland waa 245 Mareykanka waa 75600 Ingiriiska waa 31000 29,000 ayuu ku istaagay Talyaaniga u daraa hadda Yurub waxa ka daran meesha la yiraahdo England ama United Kingdom marka Spain waa 26,000 Faransiisku waa 29,000 Belgium ku wuxuu cagacaganay waxaan ka hadlaynaa waa dadka u dhintay ma aha dadka qaaday Belgium ku waa 9,000 Jarmalku waa 8,000 wadanka leeyahay Brazil waa 9,000 Netherlands ama Holland waxa uu taqaanaan waa 8,000 marka waxa weeyaan wadamadii aad buu maaragtay u saameeyay Yurub marka xayiraadda hadii la qaado xataa safaradii ma jiraan anaga hadda wadankan military bay daadiyeen garoonka ugu weynaa oo la yiraahdo
Bucharest International Airport waxa weeyaan militarigii jandarmerigii booliis militaarkii ayaaba xarun ka dhigtayba marka waxa weeyaan halkaas ay maaragtay logistiga iyo ay ka qaybinayaan waddanka dhan marka wallaahi waddanka uu nasaabay aniga hadda gaar ahaan waddankii aan ka imaaday oo sharcigiisa haystayna kuma noqon karo Norway oo ma jirto diyaaradii iyo gaadiid dhulka xataa waddanka hadda ugu dhow oo hadda aad gasho waxa lagu leeyahay 15 days mase 14 days quarantine geli ama ayagaaba ku xiraya oo 14 beri ayay ku xirayaan oo ay maaragtay si maxaabiis ahaan bay ku haynayaan hadii kale waxay ku leeyihiin isdabar hotel qaali ay ku geynayaan marka Bulgaariyada intan ii jirta ma tagi karo waan u malayn magaaladan hadda caasimadda xuduudda Bulgaariya 50 kilomitir u jirtaa baan u malaynaa bartanka waddanka kuma taalo marka Turkigu wuxuu ii jiraa 9 saacadood oo baabuur ah ma aadi karo waxa ka soo horeeya Bulgaariya maaragtay quarantine ku gelinaysa marka saameyn fara badan uu yeeshay Soomaaliya iyo Muqdisho ma soo aadi karo Kenya ma aadi karo Ethiopia ma aadi karo marka waxa weeyaan meel la aadi karo ma laha bal Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha furfuro waxa weeyaan hadda aniga 3 bilood ku dhawaad baan waddankan joogaa laakiin hadda 2 bilood lockdown-ka ay u darayd hotel baan deganahay guri meeshan kuma lihi meeshan shaqaan ka bilaabay laakiin shuruucdii iyo markaan sameeyay oo shaqadii wax yar bilaabay ayaa waddanka kan lockdown la isgeliyay marka waa dareemi kartaan nin maaragtay kharashka ku socda chief cunto gaadiid marka reerkiisiina aan la joogin iyo caruurtiisii waana ka xunaay runtii Ramadaanka waxaan rabay inaan reerka la qaato ama hooyaday iyo Muqdisho iyo walaalahay Soomaaliya inaan la qaato Muqdisho wax ay suura galay male marka laakiin dad fara badan baa ila xaniban xalay waxaan dhageysanayay idaacadda VOA-da Ridwaan Xaaji wuxuu ku xaniban yahay magaalada Muqdisho nin kale oo ay warsanayeen wuxuu ku xaniban yahay Malaysia marka laakiin wallahi saameyn fara badan bay nagu yeeshay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan leenahay Ramadaanka ha inaga aqbalo ciidana khayrkeeda Allah na siiyo Allahna maaragtay noo furo inta aan ciida la gaarin waad ogtiin hadda masaajid ma jiro cibaadadii waxay noqotay guriga waxa weeyaan meelihii la isugu imanayay ma jiraan waa la mamnuucay aroosyadii kaniisadihii in la tago masaajidii meelihii cibaadada xataa hadda meeshan baageen aanu fadhiyo sharci ma aha hadda la ogolaaday wax yar waxa inta hadda idul maraya oo aan ogolayn nimankii waardiyaha ahaa marka laakiin anigana keligay target igama dhigan karaan dad kala farfadhiya geesaha waa la fadhiyaa dadku qorax bay qaadanayaan waddankan hadda lockdown-ka hard ma aha waayo waddankan saameynta hadda uu ku yeeshay cudurku aad buu u yar yahay 15,000 ayuu maaragtay cudurka qaaday 900 qof ay u dhimatay intensive-ka waxa ku jira ilaa 300 kiisaskuna hadda aad uma badno 300 ka badan maalinkii ma keenaan laakiin haddana saayta waddankan waa xidhan yahay waa lala dagaalamay cudurka laakiin hadda cudurkan Ilaahay baa wata cudur lala dagaalami kara ma aha waddamadii ugu qanisanaa oo hadda kuwan waaba Yurub waxay ku soo biireen 13 sano ka hor iyaga iyo Bulgaariya iyo communist bay ahaayeen ama shuuci bay ahaayeen marka hadda waddankan la furfuray oo shirkadihii ugu waaweynaa ay yimaadeen oo dibadda laga lahaa sida Walmart iyo Carrefour iyo waxaa imaaday T-Mobile Vodafone waxaa imaaday shirkadihii waaweynaa Orange waa yimaadeen marka shirkadihii oo dhan baa yimaadeen hadda waddankaanu 10 sano u dambeysay uu isa soo furfuray waayo European Unionka waxay sameeyaan standard waddamada soo galaya standardkaas ayay yiraahdaan caafimaadka dhaqaalaha koraya GDP-ga waxaan ku raadayay waxbarashada infrastructure-ka technology-ga marka way gaareen iyagi iyo waddankan hadda deriska oo Bulgaariya labada waddan baa ugu dambeeyay Yurub soo galay waddamada kale way ka yar horeeyaan sida Hungary iyo Poland waa horay galeen marka hadda Yurub way la siman yihiin meelaha qaar kood way ka hormarsan yihiin baad leedahay xagga gaadiidka tareemada dhulka hoostooda mara tramka ama triga waxa loo yaqaan waxaas oo dhan marka aad bay ugu hormareen xagga culumta hadii la yiraahdo jaamacadaha ugu waaweyn bay ku leeyihiin waddankan magaalooyinka waaweyn Bucharest Cluj iyo Torgomores jaamacadaha ugu waaweyn oo Yurub
iyo Maraykanka dadku ay ka yimaadaan laakiin waddankan wuxuu ku fiican yahay waddankan Yurubta kale hal buu kaga fiican yahay waddankan hadda hoteelkan hadda gadaashayda ana hadda hoteelkan ma deganin laakiin hotel aad raqiisan u deganahay oo habeenkii $25 laakiin kan oo kale hadda haddaad habeenkii aad rabto meelaha kale waxaa laga yaabaa in $1,000 iyo meelaha lagu seexanayo wadamada Yurubta kale ama Maraykanka laakiin hadda kan waxaa lagu 200 iyo wax noocaas habeenkii lagu seexdaa marka waana classic aniga hadda intaan shut down ku soo dhicin meeshan aan fariisan jiray oo aan ka qaxweyn jiray weegiba 2 beri ama 3 beri marka from February bilowgeedii baan waddankan imaaday marka ku dhawaad hadda 4 bilood baan ay u socota marka runtii waddankan hadda saad moodaysaan ma aha horumar badan baa ka jira laakiin hadda dhaqaalahoodii waa degay recession bay ka baqayaan iyaga laftoodu marka bal waan idin wada salaamaya asxaabta qaaliga waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ramadaanka haynoo fudaydiyo maaragtay hayna aqbalo ciidana nabad iyo maaragtay barwaaqo Allah inuu gaarsiiyo waan idin wada salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inta aan ka bixin waxaan rabaa inaan dhanka kale idinku qabto ciidamada booliiska iyo meesha aan jooga iyo marka meeshan hadda areadan waa jaamacadii way guryahaas oldiga oo dhan waa jaamacadda midda kale meeshan waa meesha kilomitirka waddanka uu ka bilowda macnaheedu 0 kilomitir ayaan hadda fadhiyaa waa meesha hadda sida hadda waagi dhaweyd Muqdisho kale xamar weyne meeshii loo sameynayay 0 kilomitir waad ogtihiin waddan walba waxa uu leeyahay meel 0 laga bilaabo hadda Muqdisho magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyo Hargeysa caasimaddii labaad ah waa 1500 kilomitir 1400 kilomitir waa Boosaaso iyo Muqdisho magaalada Muqdisho iyo Kismaayo waa 500 kilomitir magaalada Beledweyne oo anigu aan ku soo koray oo in badan aan joogi jiray waad la socotaan waa 333 kilomitir ayaa lagu sheegaa marka gaalkacyo waa 1 kilomitir marka waad ogtihiin magaalada Muqdisho waxa weeyaan xaruntii Soomaaliya marka kilomitirka waxa laga bilaabaa xamar weyne meesha maaragtay waxa laga bilaabaa gaar ahaan meesha bartanka magaalada ama ubuucda xamar weyne ama haddii kale oo la yiraahdo ceel gaabta halkaas ay ka bilaabmaysaa iyo taalooyinka meesha hadda beerta nabadda laga dhigay anigu waad ogtihiin 3 bilood ka hor ayaan magaalada Muqdisho ka soo noqday halkaana waa tiyaatarkii weynaa ee magaalada hoteelkan waa hoteelka magaalada ugu weyn Intercontinental marka hadda magaalada bartankeeda maanta jooga inta maaragtay casarkii laga gaarayo waxaan leeyahay meeshan qoraxdii baa soo baxday qoraxda aad iska qaadatid ka bacdina hoteelkayga waan ku laaban doonaa bal hadda wiigaas aan sugayaa haddii ilaahay yiraahdo wiigaas haddii waddanku furmo dhinacun baan uga dhaqaaqi ama Turkiga oo Soomaaliya ka sii aadi doonaa ama Norway baan aadi doonaa insha Allah waxa weeyaan waan idin wada salaamayaa dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh